بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا قلاه وزير رذا حلبان رذا لبدا قلاه قدوم حينك بنقى دحي لمان أخيارتا قدوميها ربط قناعسيقا أخيارتا لمان أنا وكال ريبين غفل المنصب كي مقامك وقفل ديال كان ينكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaa sharaf weyn ii ah inaan ku hadlayo magaca ururka bangiyada Soomaaliyeed inaan ku soo dhaweeyo xafladan qiimaha badan sida quruxda badan la soo agaasimay oo nagala soo qayb galay madaxweynaha dalka ugu sareeyay marka anagana sharaf inoo tahay soo dhawaada aan leeyahay ururka bangiyada Soomaaliyeed wuxuu ka shaqeeyaa isku xirka iyo danaha bangiyada waxa kale oo sidoo kale uu shaqadiisa tahay u qareemida bangiyada danahooda iyo ku xirka hay'adaha dawladda kuwa tooska iyo kuwa dadban aan la shaqeyno si aad ka arkaysaan maanta xafladda magaca loo bixiyay oo ah in xuduudaha la furo maxay ahayd loo diyaar garoobo maalgashiga waxay ka timid annagoo ka turjumayna dalka waxaa la gaaray horumar oo ah in deyntii la cafiyey waxaa lagu biiray bulshada bariga Afrika waxay nooga baahan tahay marka diyaar garow iyadoo culayskeeda wadato ognahay haddana waxay nooga baahan tahay in loo diyaar garoobo lala qabsado marka discussion badan noo dhici doona maanta arrimahaas ku saabsan waxa loo baahan yahay marka maxaa la dhahaa annagoo marka diyaar garoobayna arrimahaas annaga nafteena waa is wareysanay waxaan bilownay inaan hadda aan taabo gelino mashruuc aan ku midaysanahay oo aan wada fulno bangiyada si aan isku tijaabino marka hore marka labaadna aan u diyaar garoowno si aan ula falgeli lahayn hirkaas soo socda oo challenge-gana wata faa'iido badanna wata marka hadda waxaa weliba hadda yimid oo international banks ah laba bangi aan noo furan oo mid ka mid oo operational yahay inkastoo culayskiisa aan dareenay faa'iidana uu keeni doono insha Allah sababta qolqolkii lacagaha anaga waxaan isticmaali jirnay in lacagaha marka ay soo xawaaladihii oo kale culays hadda ku noqoto lacagihii dhex soo marayaan ganacsataan ka qaadno yaan iyaga ku wareejin jirnay oo culays iyo lacagta hadda way baxdaa anaga dad wax dhoofiya ma nihin oo lacag shilin Soomaaliya ma lihin marka waxaan codsanaynaa horta lacag shilin Soomaaliga la helo si qolqolka lacagaha baxayo loo ilaaliyo hadda waxa leeyahay magaalada Calaana ka jirta waxa uu sabab ah qayb ka mid ah cash-kii oo yaraaday sababta cash-kii soo galayo istaagay hadda waxa la dhihi karaa Europe inta badan xawaaladu waa istaageen waa xirmeen sababtoo bangi la tacaamulay ma laha meel la soo marsiyo ma leh lacagii dhaxda anaga ku wareejin jirno xagga ka qaadan jirnayna waa yaraatay oo waxay martay hadda maxaa la dhahaa bangigan caalamiga oo account branch to branch u wareejinaa la helay marka waa ku faraxsanahay oo ma diidanin laakiin waxa loo baahan yahay marka la tartamayo qof jiisa iyo qof labada lugood qabin la tartansiin loo cad gooyaan rabnaa